maxaa la dhahay dadkan oo inaayahan oo wiil iyo waalidkiis inay soo kala dhex galaan rabaan u sheeg inaa wiil iyo waalidkiis ma soo kala dhex saaradu sheegtay oo ay dadka Soomaaliyeed la wadaagtay ayaa xaqiiqo noqotay wiilkii yarka ahaa waa kaasa baqshada loo dhiibana $10 ku jirtay malaha waxba kuma jirin bas sawirka xasan shimc hooyaday kansar qabta daawadeeduna waa kana iyo duubka xanuunkeed ee waa kana baatana ku jirta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبتي قالي واحد من الرجال هذيك عفماتكم مالنتي نتن مقال كسرنا وكنت داود تاني وهربا أبدأ كنا لسه مالنتي أفر مقال واحد بود عايز سوشيال ميديا سمعكم سبسكرايب سوق المقال كلا جري وما ستين ويا سود أقصد مقال كسر دور قضب وياي لكن واحد كهر مرنا هل أرين مهمة أو قف كستان مهم أوتها إنه أرنتان أيضا إنه أجادو استمر كسرنا أو بريتو أصلا سمين adduunka wax xaq dar laga galo waxa uu xun waalidka hadii hooyada aba abaha adib u geysatid ogow ilaahay ku fashira waxa TikTok la wareejinaya amba aan inay ku arko muuqaal walaashan maslaxo hal sano ka hor 8 bilood ka hor uur iska soo tuurayso horta muuqaalkaasi ma soo gudbi doono halkaana ma soo dhigi doono because gabar Soomaaliyeed ceebta ina faafi maro laakiin pointiga u soo qaatay qodobkan waxay tahay qodob kale ka hadli rabaaye waalidka aflagaadada loo geysto dhibaatadan ay leedahay maslaxa loo maal ka hor waxa la ninkaaga iyo hooyada mid dooro iyadoo su'aashaas dhaxaad ka dhigtay oo dhahay markii la dooro kari dhanka ninkeedana u badatay haddaba markii Ilaahay wuxuu qadaray in maslaxo laga keeno muuqaal 8 bilood ka hor iyadoo caruur caloosha ku jira iska soo tuurayso macnaha uur iyadoo iska soo tuurayso uurkaasi ma aqaan yaa loo lahaa iyo cid loo leeyahay iyo min Allah lagu Ilaahay waqtaas ma ku dambaabi karo marka waxa ogaataa maalintii aad hooyada dib u geystid amba aabaha dib u geystid oo aad ku caasist waxa ogaataa in Ilaahay saan ku fashilay muuqaalkaasi ma soo qaadan doono waa ka xumahay mana soo dhigi doono halkan qofka ina u qeyb gareysid way fiican tahay sirihiisa laakiin haddaan soo dhigin TikTok u dhaxyala meel buu yaala Telegram ku dhaxyala ilmahaas dad qaar waxay leeyihiin Catoosha dhalay ay leeyihiin ma ku dambaabi kar laakiin xilliga Catoosha isku dhaceen ee uru lahayd ay ku xumeen u soo tuurtay carruurtaas marka waliga waxa ogaataa iska ilaali hooyada ina aflagaadis amba dib u geyst amba ku caasist fiiri ninkaaga hooyada mid dooro loo dheh laguma dhigay xaq uu leh iyo midkee labadooda xaq weyn laguma dhigay waxa loo dheh hooyada ninkaaga mid dooro ya hooyada wax lagu doorsado ma jirto xitaa de hooyada gaalowda xataa waxa loo leeyahay xariiri hajarin ayaa loo leeyahay fiiriya hadii gaalowdo Ilaahay wuxuu ku leeyahay hooyada xariiri waa la soo xaaladeed marka iska daaya fudaadkaas maslaxooy hadda waa aragtay geedkii ashala beertay miriisa daa cunaysa hooyada awaal dhici aad ku sameysay hada cunaysa waxay bilaawday markii soo qarxi kartay in hooyada wacd iraali geliso fiira kana afta ceeb weyn markay dhacday halo hoo macaanta seetaay nabad ana waa ku fiicanahay maxaa la dhahay dadkan oo inaayahan oo wiil iyo waalidkiis inay soo kala dhex galaan rabaan u sheeg inaa wiil iyo waalidkiis ma soo kala dhex galin oo ana qof uu ka diri karin hayo maantahay adduunka aan ku jeclaynaa okay guys qodobkaas ka soo gudbina qodobka labaad waxa la soo diray nin loo magacaabo hebelow OG oo TikTok caanka oo aflagaadina Sharmaboy horta Sharmaboy maanta la joogo raabar ka fiican oo Soomaaliya haduu jiro waa ila doodi kartin laakiin ma jiro saamisana ninka markii Sharmaboy ku dhagay waa muuqaalka daawad horta ugu horey muuqaalkiisa la daawad Sharmaboy fanaan mahadi cunugan tuuqsadaha ah ee shalay Muqdisho ka yimid isagoo ri wasayaan haynaaye Sharmaboy asagoo ri wasaya oo makiinada cajiinka dhex taagan oo qaawan oo dhar wasaq xiran oo silacsan oo darbi jiif oo xashiish cabaya waxa fanaan maahniyo fankan aan la kontroolaynin la hagaajinaynin baan ka yaabay oo naag kasta kooba intay soo qaadato beedka iituma ay ninka aad Sharmaboy ku dhagan waxa leeyahay laba arin bis niyo horta Sharmaboy laga yaabaa arimo kale ku haystid arimo kale qabiil waxyaabaas xagga dhigi laakiin waa la socdaa shirkada waxa ku sheegaya ninka ragga horta limitiisa waa la qiraa Sharmaboy maanta la joogo fanaan Soomaali ah oo ka horeeyo ma jirto ninka kaliya fanaana oo 1 milyan ku xiranta TikTok ee YouTube-kiisa oo sameeyay 2 days 1 milyan qof sameeyay malahan rikoorada 1 milyan waxa bilaab goolisinba oo isbuuc ku daawatay 1 milyan isagoo yaala rikoor ah 1 week 1 milyan
waxaa jibiyeen Sharma Boy iyo waliba maslax mideeye oo 1 milyan ku gaaray 3 maalin ayadoo 3 maalin la yaaban yahay ayuu haddana 1 milyan 2 days ku gaaray Sharma Boy marka Sharma Boy nin cimaamad isla sakara maaha laakiin dhibkan haysto waxay tahay hada Soomaalilahana qabiil la dagaalayna qabiilkaas waxa laga yaabaa inuu ku jiro nin lajan ah ninkaas waxa uu ku dalaynaa hadooro lajan haado hadooro nin oo hormarsan oo hormar gaar haado waa jafeena anagoo fiirnayna kaliya dagaalka naga dhaxay qabiilkaas marka taasina ma wanaagsana ninka ragga ah libintiisa waa loo qiraa qodobka ugu dambeeya marka ceeb weyn taagan wiil yar oo Syrian in aragtay amrina oo shaqo la siiyay oo dawladda shaqo siisay kadib markii wiilkaasi muuqaal isagoo Soomaaliya toos qaada garoonka stadium Jeriso oo ku soo duubay wiilkii hadda waxa la leeyahay shaqadii waa lagu booday marka shaqadii wiilkii loo balan qaaday ee yaraa ee dawladda oo balan qaaday shaqo $400 $300 loo balan qaaday wiilkii waa lagu booday waa looga baxay familkiisu caawadayo oo sheeganayo oo ilmeenayo oo kuwana oo leh balantiin laga qaaday waana looga baxay Cabdicasiis Riyal la yiraahdo dhamaantiin intiina badan waa taqaaniin ayuu gurigiisa ku gargaraacay waa ninka la sawiran markaas asoo aabbo wada umada Soomaaliyeed noo bandhig waxna la siiyay ma jirtay oo xaqiiqo ah adduunka balanka baxa ma fiicno waliba qof islaam marka tahay balanto inay oofisa bal familkiisa wiilka oo sheeganayo dhibaato weyn soo wajahday shaqadina aan haysanin waa kan la daawado Abdurrahman Sadow markale Abdurrahman maanta gabdho Soomaaliyeed oo wadanka Sweden qaarna ay ku sugan yihiin qaarna yimid ayaa lacag idin kugu deeqay ana hay $100 waay marka hore dadka xasuusi wiilka ahayd iyo dhibaatada hooyo haysato maxay tahay dhibaatada waxay haysto hooyaday kansar qabta daawadeeduna waa kana iyo duubka oo xanuunkeed ee waa kana baatana ku jirta hooyadeena waa xanuunsan tahay mar aday way wareystay mar nin ay wareystay markaas dad way soo waceen maxaa lahay beel ayadana way caawisay beel ilaa xabdiyo waa maasantiin khayr ilaa ku siiyo insha Allah dadka Soomaali joogo iyo Sweden iyo Kenya meelahaas Mareykan waxaa ku cusubada inay caawiyaan hooyadeena caawiyaan wallahi billahi tallahi Suuriya adirna qaliinka meesha saksimirna waa maasantiin hay caawiyo wanaadkin ilaa kaasa hooyo isbitaalkee la geeyay hadda yardimeen dhakhtarkana waa jooga dhakhtarkii yardimeeli waay haya dhakhtarkii meesha saa jooga isbitaalka waa la geeyay waxaa la dhahay qaliinka tamag sameerta iidan waa cabsata macnaha hooyadeed iyo meesha saa joogaan macnaha abtiyaasheed agteed adaa dimid ka waran xaalka yaaba kadib abtiyaada agteed in qaliinka la sameeyo waa markaas maadaama hooyo familka xaga jiraan in qaliinka xaga lagu sameeyo meeqa qof atiin qoyska meeqa koobantiin aniga iyo walaashii weynta iyo walaashii yariista 4 qof aan ahayn iyo maalmaha qaar habaryaalta xaafada joogta maalmaha qaar waa aada Soomaali saanse ugu baratay qof dadka af Soomaali ku hadla Syrianka qof ugu fiicnaa adiga magaalada isku wareega marka qaniga qof yariisana maskaxkayga waa furantahay magaalada isku wareega af Soomaali waa qabto markaas Arabiga ka dhuma ka cabsanaysid kaas toqayda ma nami karo ilaalina Syria magaalada ka degnadeen waxa ka degnaa Xamis degnadeen hadda marka in hooyo celiso oo xaq qaliin lagu sameeyo rabtaa dadka Soomaaliyeed marka magaalada aad joogto maxaa kala kulantaa dad sidee ah waay wala dad fiican waa hal qof xataa ma arkano hal qof xun amiyaal wallahi dadkaas waa fiican Soomaali ilaa xafdiyo insha Allah muraadkin ilaa kaas la Soomaalidan ilaa xafdiyo ya gobolaha muslimiintadan ilaa xafdiyo ana asaas ku barnaa dadku sheeg habeen hore wax ku arkay xamarweene waa ma santay darciida ay gadatay berina kala jubbaas ku aragnay waxay raatay beri ima ku soo duuba saaydaat wayahay Abdurrahman halka ay joogaan hay insha Allah bixitaankeeda waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano oo idin soo xiriirno anigu waan noqonaa dhawaan Agosto ilaa yiraahdo insha Allah hay Abdurrahman koo labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban af Soomaali ku taqaan lacagta inta tahay sheeg $100 ma sha Allah gacanta mid ku qabso lacagtan madaxiga lagu siiyay ana meeqa siinay xartida ku siinay ay adii baradaas kale ya
maadaama waa kaa qaadan lak hooyo kaa xanuunsan ma ho ها hadda hooyo kaa xanuunsan hooyo caafimaad kugu rajeynaynaa hooyo Syria u noqon doontaa إن شاء الله waan la daaweynaa إن شاء الله anaadan waa balan waxaan hadii hooyo joog idhaada kula jooga minino إن شاء dhib ma الله lahan wiilkan la kula jooga u dhahay marka Cabdiraxmaan dadka Soomaaliyeed iyo Fartuun iyo Beel u duceey إن شاء الله فوزيو إله حفظيو يا بيل إله حفظيو إن شاء الله نوركين إله كاسالو مي الله عندن سومالي دتك جوغان يو مريكاني مي الله جوغان إله حفظيو لكن أنا هويدي وحنون سنتا دتك وحاكو عصدا دن شعب كدن وحاكو عصدا أنا يعاويان ولا قلينك سوريا على سمي الربا وما سنتين نوركين إله كاسال إن شاء الله أدين إله كحفظيو عبد العزيز ومدام يعاوسي أدين إله خير كسير يا الله كو عافية آمين ويا الله كو عافية إن شاء الله جزاكم وما الله سنتين خير الله يبارك فيكم الله يجعلكم من أهل الجنة يا رب آمين آمين ويجعلها بالميزان حسناتكم الله يبارك فيكم كل ما ساهم معانا الله يبارك في الشعب الطيب آمين جزاك الله يا أخي عبد العزيز جزاك الله يا أمي فوزية ليبتنا الله يبارك